Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa idin salaamo walaalayaal walaalaha Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan. Waxaa farxadii ah oon aad ugu faraxsanay inaan maanta idinla wadaago kambanigan la yidhaahdo one coin one life. Waa kambani marketka yimid 2015. wuxuu ka ganacsadaa oo sameeya waxa la yidhaahdo digital moneyga ama la yidhaahdo cryptocurrency-ga waxa la yidhaahdo. Waa lacagta maanta adduunyada inteeda badan la go-aansaday in la isticmaalo oo lacagta caadiga looga guuro. Waa lacag lagu isticmaalo mobile to mobile ayaa lagu isticmaalaa, oo markaad lacagtan dirsanaysid ama wax ku gadanaysid mobilekaaga aad ka diraysaa meesha kale oo meeshii aad doonaysid oo kale ayaad wax uga gadanaysaa. Waa lacag marka teknolojiyadda ku shaqaysa iyo mobileka xaggiisa ku shaqaysa weeye. Kambanigan memberadiisu hadda waxay gaarayaan 2.9 milyan iyo waxay ku dhow yihiin. 2015 ayuu marketka yimid. Dad yar baa runtii bilaaba boqol ka yar markay 2015 marketka imaadeen, maantana 2.9 milyan ayay ku dhow yihiin. Marka speedkiisa waxay ku tusinaysaa kambanigan iyo korriimadiisu kambani aad iyo aad u qaali ah oo mataqaanaa muddadii yareeda uu jira multi billions company noqday, oo mataqaanaa successkusuna iyo mataqaanaa guulihiisuna ay aad iyo aad u waaweyn yihiin. Gadaal baanu kolley inta badan gadaal baan ka sharaxi doonaa, waa noo soo socotaa haddii ilaahay idmo. Lacagta aynu maanta isticmaalno marxalado kala duwan ayay soo martay. Systemkii ugu horreeyay lacag ahaan loo isticmaalo waxaa la oran jiray barter system ayaa la oran jiray. Waxaad adigu u baahan tahay iyo waxa qofka kale u baahan yahay ayaa la isku bedelan jiray. Sidoo kale lacagtii ayaa ku xigtay silfarkii iyo dahabkii lacagtii ahayd ayaa ku xigtay. Waxaa ku xigtay lacagtii xaashida ahayd oo iyaduna 1816 soo baxday. Waxaa sidoo kale ku xigay kaararka aan maanta isticmaalno inteena badan, ayagana inkastoo laga socdo oo loo socdo digital mataqaanaa in digitally wax walba lagu bixiyo. Ayaan dhawaad survey soo baxday European soo saareen, waxay soo saareen dadkooda wadamadooda degan ee 25 sano ka yar inaysan wax kaara haba yaraatee qaadan, oo ay mobilekooda kusoo download gareystaan bangiyadoodii. Waxaa hadda soo baxay bangi kastoo aad leedahay waxaad kasoo download garaysan kartaa app storeka iyo Google Playga ayaad kasoo degsanaysaa. Meel kastoo lacagta lagu bixinayana contactless ahaan ayaad ugu dhaweynaysaa. Marka kaarka laftirkooda gabalkooda waa sii dhacayaa, waqti yaroo aan badnaynba ayaa u dhiman. Sidoo kale kambaniyo badan ayaa jira oo digital moneyga lacagta la dhaho sameeya, laakiin one coin hadda waa kambaniga maantay asagoo muddadaadii yar jira kambaniga ugu awooda badan ayuu noqday, uguna memberada badan. Waana detailskiisa faraha badana gadaal ayaan runtii uu nooga soo socdo aan ka sharaxi doonaa. Laakiin waa kambani intaas isagoo jiray 2 sano keliya hadda iyo dhowr bilood jira. Gabi ahaanba mataqaanaa ka dulmaray wax allaale wixii digital money hore u sameyn jiray kambaniyada u sameyn jiray oo dhan liqay, oo ka membera badan kana awood badan. Waa kambaniga ugu horreeyay caalamka oo digital money sameeya, oo loogu talagalay loona dhisay si caalamka oo dhan maqrib iyo maqshid wax looga kala gato dukaamada iyo wax walba. Marka insha Allah gadaal bay nooga imaan doontaa. Waa maxay marka lacagtan digital currency-gu ama cryptocurrency-ga la yiraahdo ama digital money-ga la yiraahdaa? Waa lacag sida lacagaha caadiga oo kale, waa medium exchange oo mataqaanaa sida currency-yada caadiga aan naqaano mataqaanaa Great Britain oo kaleeto, Mareykanka oo kaleeto, Eurada oo kaleeto, mataqaanaa number kasta oo digital moneyga ahna waa wuxuu leeyahay unique number ayuu leeyahay. Sida lacagta caadiga markaad fiirisaan lambar baa ku yaala, lambarkaasi waa lacagta lambarka dheer xaashida ku yaala sidaad aragtaan. Waa lacag sidaas oo kale digital moneygu lambar saas oo kale leedahay, laakiin waa ka security fiican tahay. Waana unique numberkeedu sida lacagaha xaashida oo kale looma koobiyen karo. Lacagta caadiga aad maanta isticmaashaan haddaad fiirisaan lambarkeedu waa lambarkaas 10 jiifar buu ka kooban yahay inta badan, ama 9 aan iraahdee 9 jiifar buu badanaa ka kooban yahay ama waa ka badan yahay. Waa la iska soo koobiyeysan karaa, waana sahlanta in lasoo koobiyeysto lacagta digital moneygu, laakiin lambarkeedu waa kaasaa. Sababta security-ga waa uga fiican tahay loo yiri waxa weeye waa lambarkaas wax la koobiyen karo ama hacking lagu sameyn karo ama la iska alifi karo inta warqada la daabacda maaha. Waa lambaro hash iyo waxyaabo fara badan ku jiraan oo cid haba yaraatee jebin karta ama cid haba yaraatee dib u sameyn karta inaysan jirinin. Marka la sameynayo lacagtaana waxay martaa waxa la yiraahdo loogu yeero waxa la yiraahdo miningku micnaheedu maaha dahab la qodayo maaha, laakiin waa terminology kaliya, waa method kaliya, waa meesha lagu soo sameeyo mashiinada soo sameeya lacagtan digital moneyga ayaa waxa la yiraahdaa mining. Maaha wax sida mataqaanaa
dahabka oo kaleeto iyo dahabka sidiisa oo kale marka la qodayo oo kale physically loo sameynaya maalinkiisu maaha, laakiin waa virtual ayaa loo sameeyaa oo mashiinada ayaa si virtual u sameeya, adiguna ma soo sameynaysid, companiga ayaa mas-uulka ah inuu kuu soo sameeyo. waxaana sameeya kombiyuutaro mataqaanaa software iyo hardware ayaa sameeya, kuwaasi oo xal u raadiya xisaabta lacagta lagu sameeyo markaas si loo sameeyo lacagtan la yiraahdo digital money, oo sida lacagta caadiga ah marka bangiyadu sameynayaan mathematical solutions waa inuu mashiinku helaa, oo laba xaashiyaha waa inuu kala duwaa labada lambar ku taala, haddii kale lacagtu fake bay noqonaysaa. sidaas oo kale lacagtan digital currency-gana ama digital money-gana kombiyuutara ayaa sameeya. qiimaheeduna wuxuu ku dhisan yahay oo ku salaysan yahay keliya wax la yiraahdo rabitaan iyo isticmaal, demand iyo supply wax la yiraahdo ayuu qiimihiisa oo dhan ku salaysan yahay. oo lacagtani digital money ayada lacag ahaan runtii qiimo ay leedahay saas ma jiro, qiimaheeduna waa zero, laakiin dadka ayaa wax ka dhiga. lacagta caadiga aad maanta isticmaashaan aad maanta isticmaalaysaan go-aankeeda adinku ma lihidin, go-aanka waxaa iskale waxaa weeye bangiga iyo waxaa iskale mataqaanaa dowladda ayaa go-aanka ka gaara. lacagta aad haysataan xaashida maanta haddii qiimaheeda hoos loo dhigayo iyo haddii la qaaliyeynayo iyo haddii lasoo daabacayo midna laydikalama tashado. laakiin lacagtan digital money waa lacagtii dadka, sababta loo yirina waxay tahay waa dadka ayaa wax ka dhiga, dhimaan waxa la dhahay ku shaqeysa iyo rabitaan. dad fara badan oo soo gelaya ama gadanaya oo maanta dhan aaminsan waxaan inay waxay yihiin, qiimaha shilinkuna kor buu u kacaa, kambanigana brandkiisa iyo mataqaanaa magaciisa caalamka oo dhan ayaa markaa laga baranayaa. sidaasuu micnaha qiimaheeduna ku dhisan yahay, ma laha inflation iyo sicir barar, waayo ma laha ninkii dhexe ee bangiga ahaa iyo ninkii credit kambaniyada lacagta iyo ribada dadka ka qaadi jira ma laha, oo qofka toos ayaad uga gadanaysaa. wax islaamkuna waa sida uu qabo in loo dhexeeya labada qof oo wax kala gadanaysaa, waa islaamku ma qabo. tanna waa sidii oo kaleeto, mobilekaaga waxaa ka dirto qofkii aad wax ka gadanaysa cidina idima dhexayso, laba lacag meesha intaada isku qabanin seconds la isugu diro caalamka oo dhan sida emailka laisugu diro kale. sidoo kale wadamada hadda soo samaystay lacagtan oo u arkay inay xalka adduunyada iyada ku jiro, ama adduunyada mataqaanaa dhaqaalahan soo socda new economiga soo socda adduunyada lacagta la jaan qaadi kartaa inay tahay lacagtan wadanka fahmay. waxaa kamid ah wadanka ingiriiska, oo bishii haddaan soo dhaafna August ayaa wadankan ingiriisku soo samaystay lacagtan la yiraahdo digital money-ga. haddaad fiirisaan maqaalkan wuxuu leeyahay sababtaan usoo sameynay waxay tahay inaanu ku hagaajino dhaqaalaha adduunyada ayaanu usoo samaysanay ayuu yiri. haddaad maqaalkaasi akhrisaan oo Bank of England RS coin google-ka gelisaan waad arki doontaan sida uga sii faahfaahinayo. waxay leeyihiin lacagtani waa ka qiimo badan tahay, waa ka raqiisan tahay, waa ka security fiican tahay lacagta caadiga aan maanta isticmaalno. sidoo kaleeto bangigan waa bangiga caalamka ugu horeeyey oo Australia ku yaala, waa City Bank, waa bangiyada adduunyada ugu waaweyn oo maantay mataqaanaa looga dambeeyo dhinaca dhaqaalaha. waa bangiga ugu horeeya caalamka ee joojiyay inuu cash gabi ahaanba aqbalo wadankaasi Australia. sababtana waxay yiraahdeen aan u joojina wax kale maaha, 12 bilood ee lasoo dhaafay haddaan maqaalka sii akhrisaan oo intaa koro ciwaanka google-ka gelisaan waxay leeyihiin sababta aan u joojina waxay tahay 4% dad gaaraya ayaa sanadkoo dhan soo galay branchyadeeda iyo mataqaanaa meelahayaga ganacsiga oo cash watay. 96% aan cashka wadanin oo aan doonaynin cashka ayaanu raacaynaa bay yiraahdeen. marka ganacsi ahaan dhaqaale ahaan nooma fiicno, mana sii wadi karno inaanu cashka qaban, inaan cash ahaan inaan qabsano, inaan cash ahaan micnaha inaan cash dadka kasii qabano, waayo shaqaalahan faraha badan u shaqeynaya waxay u shaqeeyaan waxa ugu badan inay dadka cashka meesha u dhigaan. haddaan cashkiiba imaanin ama aada u yaraado waa khasab bangigu waxyaaba ka duwan ayuu sameynaya, marka dhaqaalihiisa u safe garaysto ayuu raadsanaya. wadamada sidoo kaleeto u socda inay cashless mataqaanaa noqdaan oo ay mataqaanaa lacagahan caadiga ka guuraan wadanka India ayaa kamid ah. marka wadamo fara badan weeye waa lacago micnaha maanta loo dhaqaaqay adduunyada dhan la soo samaysto. Australia sidoo kaleeto, China sidoo kaleeto, Canada, wadamo fara badan ayaa runtii ku jira inay soo samaystaan. waxaa kamid ah oo digital cashless noqdaan. Sweden baa kamid ah oo iyaduna cashless noqonaysa muddo aan aad u dheerayn. Dubai baa kamid ah iyo Imaaraadka oo 2020 dirhamkii lacagtii la oran jiro oo dhan la xareynayo aan la isticmaali doonin oo lacagta mobilka lagu isticmaalayo kaliya la qaadanayo.
sababta ay tahay kambanigan inaad si fiican ugu fiirsataa maxay tahay kambanigan waxa weeye waxaa aasaaskiisa la unkay 2014 wuxuuse marketka yimid 2015 waa kambanigii wuxuu sameeyey kambanigan ilaa iyo hadda 300 millionaires ayuu 12 bilood ugu horreeyay sameeyey wuxuu kaloo sidoo kale waxaa kaloo sidoo kale jira dad ka badan 30,000 oo members today oo sanadkii more than 6 figures earners ah mataqaanaa lacag ka badan 6 figures earners micnaheedu wuxuu yahay waa lacag 100,000 ilaa iyo milyan gaaraysa ayay sanadkii ayay helaan sidoo kaleeto kambanigani wuxuu gadaa week kasta oo mataqaanaa dadku ka gataan 125 milyan oo mataqaanaa euro ayuu sameeyaa week ilaahay keeno waa kambaniga caalamka ugu horreeyey ee $1 billion sameeya revenue sameeya haddaan intaa halkaas wax yar kugu leexdo idii sharaxo google apple aan iraahde waxay ku qaadatay 7 sano inuu $1 billion sameeyo microsoft waxay ku qaadatay 9 sano inay sameyso kambanigii rekoorka haystay ugu dambeeyay waxaa la oran jiray group on haddaad google garaysaan waa kambani online business ah laakiin kambanigan one coin one life oo hadda yimid oo 2 sano kaliya jira ayaa ka qaaday caalamkii oo dhan rekoorkaas ka qaaday sidoo kale market shareka kambaniga marka loo fiiriyo marketyada waa 5.3 billion dollar weeye waana kambani cusub oo runtii baby ah taas la socda kambani opportunitygiisii baxdayna ma aha oo tagtayna ma aha waa kambani cusub oo qof waliba hadduu la jaan qaado uu ka hodmi doono haddii ilaahay idmo lacagta maanta caadiga aanu naqaanaa 2 marxaladood ayay soo martay marxalad dahabka ayaa mas-uulka ah oo backtab u ahaa marxaladna waa marxaladda maanta aan joogno oo haba yaraatee wax backtab u ah ma jirto waa xaashi la iska soo daabacdo waagii hore waxaa dhici jirtay haddaad $100 jeebka ku wadato ood bangiga intay geshid aad tiraahdo dahabkayga isiiya waxay ku siin jireen dahabka u dhigmay ayay ku siin jireen oo token ah ayay ku siin jireen maanta laakiin it's not backed up by anything waxaba yaraatee asad ah oo ka yaala bangiyada iyo dowladaha ma jiro intooda 99% waa iska soo daabacdaan markay wareeraan oo suuqu ku xumaado ayaa lacagta iska soo daabacdaan waana waxaa la yirahdaa inflationka waayo oo keenaya sicir bararka sababtoo ah waxay iska soo daabacdeen hanti ayna haysanaya iska soo daabacdeen 1945 tusaale ahaan haddaad 30,000 oo pound haysatay waxa u dhigmaa maanta lacag ka badan 1 million pound ayuu u dhigmaa haddii sida kale loo dhigana lacag 30,000 oo pound haddaad maanta ay haysato waxa u dhigantaa 1945 625 ayaa u dhigantaa marka lacagta caadiga sida ujeedeen waa lacag over time qiimaheedu iska dhaco laakiin lacagta digital moneygu waa opposite-ka weeye dhinaca kale weeye lacagta digital moneygu muddada dheer qiimaheedu aad ma dhaco qiimaheedu wuu sii kordhaa tusaale ahaan kambanigan hadda ugu horreeyey lacagta adduunyada sameeyey digital moneyga ugu horreeyay sameeyey waxaa la oran jiray bitcoin ayaa la oran jiray 2009 ayuu soo baxay marketkana markaasuu yimid app buu samaystay ninkii sameeyey waana isqariya waa anonymous lacagtiisu ninkan markuu marketka yimid 10 pence ayuu ahaa lacagtii lagu loonji gareeyey oo suuqa lagu kala gadanayay 2013 haddaa fiirisaana wuxuu gaaray $1,045 ayuu shilinkii gaaray halkaas marka haddaad fiirisaan 2009 lacagta xaashida ahayd caadiga ahayd ay haysatay $1,000 haddaa haysatay 2013 marka lasoo gaaray $1,000 kuuma gooyo wuxuu kuu gooyey 2009 waa xaqiiq oo 10% ugu yaraan qiimihii lacagtaasi way lumisay oo shaygii maanta aad ku gadato 2013 waa ka badan yahay lacagtii aad ku gadan jirtay 2009 waa ka badan yahay laakiin fiiri digital moneygu 10 pence buu ahaa 2009 laakiin 2013 wuxuu noqday $1,000 marka waxay uga fiican tahay lacagta digital moneygu taas weeye muddada dheer ayadoo qiimaheeda waa ceshataa sidoo kale nimankan meesha ku sawiran waa nimankii ka hodmayo lacagtu intay fahmay waxaana inay wax cusub yihiin oo adduunyada kusoo kordho hanti fara badan laga samayn doono oo lacag yar bay gashteen lacag fara badan bayna ka kaash garaysteen wax la iska samaynayo waxaani maaha wax google-ka emailba ku jira waa lacag dad yar oo $1,000 intay gashteen bay lacag mataqaanaa $10 milyan gaaraysa ayaa qaarkood kaash garaysteen intay lacagtaas gashteen why because xilligii waxay fahmeen dadkoo dhan ka baqayeen oo ka cararayeen oo riskigu jiray ayay fahmeen oo lacag gashteen kadib markay wixii istaageenna waa ka hodmeen dadkana waxa ugu
businessna sidiisaba khasaarana waa leeyahay, faa'iidana waa leeyahay. Sidoo kaleeto wiilkan yar ayaa ka mid ahaa, waa 19 jir Norwegian ayuu ahaa. $27 buu gashtay lacagtan markii 2013 2013 markuu marketka tagay ayuu newska ka maqlay meel walba lacag baa soo baxday bitcoin la yiraahdo. Markuu akoonkiisa furo dib u fiiriyana wuxuu arkay asad gaaraysa 886 meesha u joogta, weligeesna akoonkiisa xataa dib dambe uma furin. Marka waxay ku tusinaysaa qaabka lacagta looga sameeyaa digital money-gu inay tahay qaab ka duwan business-yada aad taqaaniin oo taaban kartiin, oo alaabada la dhoofiyo, alaabta la soo dhoofiyo, dukaamada dharka la gaday iyo mataqaana la iska dhex fadhiyo maanta oo dhan waa ka duwan tahay. Haddaad fahantid dhaqso muddo hore intuu bilowga yahay fahantid, weligaa lacagaada ka samaysan dukaan iyo meel walba aad fadhidid ayaad ka samayn kartaa. waxaa hadda markaydii waxaan idin daarayaa cajalad ay aad uga hadlayaan ragga macnaha adduunyada maanta loo nisbeeyo dhinaca lacagaha, ay ku ammaanayaan lacagtan digital money-gu inay tahay lacagtii future-ka. Bitcoin really the money of the future? Bitcoin. All the rage, but what the hell is it? Bitcoin is better than currency. There's a big industry around Bitcoin, and people have made fortunes out of Bitcoin. Technical answer on Bitcoins is that Bitcoins is a remarkable cryptographic achievement. It is a huge deal. It's a huge, huge, huge deal. Sida arkaysaan waa dadka adduunyada maanta ugu hodansan, ilaahay baa hodane oo lacagaha ugu faraha badan loo nisbeeyo, ayaa lacaga fara badan ka gashtay lacagta company-gan digital money-ga Bitcoin, oo runtii aadna u aaminsan. Bitcoin markuu soo baxay waxaa la oran jiray waa scam, waa kan waxaan la taaban karin, lacag ma noqoto. Google iyo YouTube haddaa gashaan oo Bitcoin scam 2009 hadda ku garaacdaan, kulli waa ku jiraan weli lagu leeyahay waxaan la taaban karin, weligeed wax ma noqonayaan. Ka carar dadkii aaminay oo intaas u maleynaya inay waxaan run yihiin, waa dadkii aan fahmin oo innovationkii waxa cusub aan fahmin. Dad yar baa laga ka faa'iiday. Maanta laakiin Lamborghini baa lagu gataa, Ferrari baa kala dhax lagu gadan karaa, eBay, Amazon, Microsoft, meel adduunka meel fara badan ayaa laga isticmaalaa oo form of payment ahaan loo isticmaalaa. Laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeye Bitcoin markuu soo baxay 700 oo company ayaa koobiyeysa. Dogecoin baa jira, Monkeycoin baa jira, Eleven coin baa jira, John coin baa jira. Qof waliba wuxuu doon iska soo daawacday sida bini'aadamka ku taqaaniin. Bitcoin ayaana la wada koobiyeyey, mid kastana anonymous weeye, wixii lacagtan lahaa lama yaqaano, qofkii sameeyeyna lama yaqaano. Majority-gooduna wax ay qiimo leeyihiin male, because waxaan soo sheegayna waxaana ku xiran yihiin wax la yiraahdo demand iyo supply inay ku xiran yihiin. Waxa Bitcoin oo kale hadda cid gadan kartaa maanta ma jirto dadka caadiga, sababtoo ah marketka weyn buu iska joogaa. Bangiyada iyo dadka lacagta ayaa betting ku sameeyo, gambling ku sameeyo, marna kor buu u kacayaa, marna hoos buu u kacayaa yiraahdaa. Dhammaantoodna marka waxay la qarabayeen saas weeye. Ismana aha lacag loo disaan gareeyo, loogu talagalay in caalamka oo dhan mataqaanaa loo isticmaalo sidii payment oo wax walba lagu kala gato. laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeye kuwaas kama hadlayna, waxaan ka hadlaynaa waa one coin. Muxuu yahay one coin? One coin waxa weeye waa digital currency ama digital money intoodaas oo dhan ka fiican. Muxuu uga fiican yahay, uga duwan yahay? Wuxuu uga duwan yahay, uga fiican yahay waxa weeye 700 aan hadda kasoo sheekeeyay. Waxaa la yiraahdaa decentralized, wax la yiraahdo ciddii lahayd lama yaqaano, cidda lacagta lehna lama yaqaano. Haddii laga xadana laguma soo celin karo, waayo markaagii horeba data kugu qoraysa lacagtan inaad leedahay ma jirinin. One coin kulligoodba waa ka duwan yahay. Waxa weeye sida wuxuu isticmaalaa wax la yiraahdo KYC oo sida bangiyada oo kaleeta ah. Wuxuu isticmaalaa wax la yiraahdo KYC oo sida bangiyada oo kaleeta ah. Bangiyadu waxay isticmaalaan, bangigu hadduusan aqoonin aan iraahdee, hadduusan ku aqoonin qofkaad tahay oo aanan addresskaaga iyo meeshaad degantahay ID-gaaga uuna caddayn karin, bangiga kuma furaayo. Kambanigan sidoo kaleeto haddii uuna ku aqoonin oona addresskaaga iyo baasaboorkaaga aan la cadday karin iyo ID-gaaga, sidoo kaleetana memberka ma noqon kartid, mataqaana hantina kuma dirsan kartid, lacagtaadana hadhowto kuma suurtagelaysa xataa inaad gedid haddiiba xataa haddaad member noqotid xataa. Laakiin inkastooba kumaba suurtagelaysaba inaad member noqotid, sababtoo ah hadduunu kambanigan ku aqoonin waa sida bangiga oo kale. KYC-gaaga haddaadan xaqiijinin cidina kuma furayso. The biggest race in the digital world is who can create the first global cryptocurrency. The first transparent global cryptocurrency for everyone,
becoming the undisputed market leader. OneCoin is a transparent company proud to have created the first mass-market cryptocurrency. Safe, secure, trustworthy and reliable, the centralized model protects its members' safety. Externally audited cryptocurrency that audits its blockchain with independent third-party agents. All transactions and mined coins are recorded in the OneCoin blockchain. Tailored for future-proof mass transactions, OneCoin's blockchain can perform more transactions than global credit card providers. OneCoin is not pre-mined. You, the members, create the market, mine the coins, use the coins and make history, participating in a powerful opportunity. Transparency, sustainability, stability, growth, compliance, fairness. OneCoin, one world. Join the financial revolution. sidaa ujeedaan waa company macnaha doonaya in noqdo companyga caalamka ugu weyn sida dollarka oo kale maanta reserve-ka lacagta caadiga waa dollar wuxuu rajeynayaa inuu noqdo companygan mataqaana digital currency-ga reserve-kiisa adduunyada dhan inuu noqdo ayuu rajeynayaa haddana cid runtii kula tartamaysa ma jirto companygan wuxuu market-ka yimid si aan idin soo sheegaba 2015 ayuu yimid 50 pence ayay ahayd lacagtiisu maanta waxay maraysaa 785 ayay ahayd December 2016 welina hadda maanta on January joogno intaas ayay maraysaa. The founder, Dr. Ruja Ignatova, born in Bulgaria and raised in Germany, have a solid background in finance. She completed both her master's degree in economics and PhD in law simultaneously in Constance and Oxford in only 4 years. Despite her young age, she has already been working as the youngest associate partner at McKinsey. While at McKinsey, she worked for Sberbank, Allianz, UniCredit, Raiffeisen, and other financial institutions. She has also been doing projects with Deutsche Bank Frankfurt, setting up Russian investment banking operations. She was the CEO and CFO for one of the biggest asset management funds, managing €250 million in assets. As soon as cryptocurrency became a success globally, Dr. Ruja saw the potential in improving the new technology and soon became an expert in the new financial era, cryptocurrency. This led her to do consulting work for several cryptocurrency companies, and she has since then written books about cryptocurrency that have been translated into various languages. Year 2012, she won the title Female Entrepreneur of the Year in Bulgaria, and 2014, she won it again for her innovation of OneCoin. With a powerful background and an urgent drive to improve the existing security challenges for cryptocurrency, Dr. Ruja has refined the technique further, and she has developed a new system that would almost eliminate the risk of theft. Creating a traceable coin was proven to be a good move. taasi waxa ahayd gabadhii Dr. Ruja waa gabadhii samaysay company-gan waa gabar mataqaana credentialkeeda iyo aqoonta ay leedahay runtii aad u weyn tahay waa qofka saddexaad ee caalamka maanta looga dameeyo lacagtan la yiraahdo digital money-ga iyo aqoonteeda waa gabar ka soo jeeda dhinaca dhaqaalaha oo aan soo marin company-yadan waxyaabahan la yiraahdo network marketing iyo waxyaabahan la yiraahdo waligeed ma soo marin waa gabar Europe meelo fara badan oo kala duwan bangiyo fara badan oo kala duwan runtii ka soo shaqeysay marka sababtaas ana keentay in aqoon u yeelato ay fahanto waxyaabaha kuwii hore ka qaldanaa oo ay saxdo markaas kan keento sida kaleeto mataqaana waa market education on cryptocurrency waxa la socda education ayaa la socda digital money company-gan wuxuu ku base garaysan yahay waa waxbarasho sababta waxbarashada loogu saleeyana wax kale ma aha dadku waxaan waa ku adagtay inay fahmaan lacagtan digital money-ga casriga ah ee cusub marka in la fahamsiiyo ay bartaan waxbarasho ayaa la socota lacagta meesha lagu sameeyo OneCoin meesha lagu soo sameeyo waa mining buu leeyahay oo lacagaha lagu soo sameeyo sidoo kale waa lacag loogu talagalay OneCoin in mataqaana business-yada adduunka oo dhani wax ku kala gataan oo mass ah laakiin aan loogu talagelin kaliya marketyada inay mataqaana ayagu wax ku kala gataan sida Bitcoin oo kale ma aha lifestyle design kaaguna
adiga unbuu kugu xiran yahay iyo qaabkaad u wajahay sidii waxaad ka doonaysa haddii lahayd. The One Academy is the heart of our company. Cryptocurrency is not an easy product. It's a very innovative product based on technology and based on very, very complex concepts. For us to be part of this financial revolution, to be part of cryptocurrency and of a community, we need to understand exactly what we do and what we talk about. And this is why we have the One Academy. The One Academy provides you with concepts, provides you with explanation on cryptocurrency and on the financial world. I would encourage everybody to join the courses, to do the certificates, and to understand thoroughly how to use cryptocurrency, what cryptocurrency is, and how we can change the world by using cryptocurrency. One Academy. Learn today, lead tomorrow. sidaa u jeedaan waxbarashadu waa kiiga iyo horumarka qofka bini'aadanka ah. haddaadan waxba baranin wax horumar ballaaran oo aad hor ugu soconaysa ma heli kartid. sidaasaa marka digital moneyga companygana waxbarasha la socota. waxbarashadiisuna waa waxbarasho runtii qaali ah oo dadkii raba inay bartaan aqoon aad iyo aad u ballaaran uu ka heli karo, oo ay ugu weyntaa midaan la yirahdo forex oo adduunyada dhan maanta looga shaqeeyo, meelaha ganacsiga iyo xarumaha suuqyada adduunka looga shaqeeyo. companyga maxaa laga gataa marka la soo gelayo? companyga marka adigu soo galaysid waxaad gadanaysaa waxaa la yiraahdaa waa kona packageadan ayaad gadanaysaa. waxaa la yiraahdaa educational packages, waa waxbarashada aan idiin soo sheegay. waxbarasha ayay ku base garaysan ku salaysan yihiin. tokenadaas ayay la yimaadaan, set of tokens ayay la yimaadaan. kadibna lacagtaadii ayaa lagu soo sameynaya processku markuu dhamaado. companygu wuxuu wax ka helaa waxa weeye baakajadaas oo dhan markay dadku gataan. maadaama markaan soo sheegay waxaan idhi 4,000 ilaa 8,000 oo qof ayaa maalintii gata, maalin ilaahay keeno gata oo caalamka qaaradahaas adduunyada oo dhan ka gata. adigu markaad dooratid packageka aad is leedahay waa ku anfacaya. markaad dooratid waxay la yimaadaan set of tokens. afartaa ugu koreysa haddaa fiirisaan, kan ugu horeeya 1,000 token buu la yimaadaa, kan ku xiga 5,000, kan ku xiga 10,000, kan ku xigana 30,000 oo tokens ayuu la yimaadaa. kuwa hoosena waa kasii badan yihiin. haddaad lambarada yararka ee gaduudan fiirsaan 1 iyo 1 iyo 1 iyo 1 baa ku qoran ku afarta ugu koreysa. kuwa hoosena 2 iyo 2 iyo 3 3 bay leeyihiin. waxaa la yiraahdaa split ama double wax la yiraahdo weeye. labadii biloodba mar buu dhacaa. labadii biloodba mar kasoo companygu 250 milyan oo euro gado iyo wax ka badan dadka waa loo laba jibaaraa tokenadooda. taasoo micnaheedu yahay markii tokenadaada lagu laba jibaaro iyadoo ay ku xiran tahay inta double aad leedahay, waxaa iyadana ku badanaya lacagta shilmaadkii hadhowto markuu processku dhamaado lagu soo sameynayo. tokenadu maxay yihiin? tokenadu wax kale ma aha, wax market laga gatana ma aha, wax qiimo lehna ma aha, laakiin waa waxa kuu sahlaya in lacagta mashiinku kuu soo sameeyo weeye. sababtu maxay tahay? mashiinkani markuu sameynayo lacagtan korontaa ku socota, qarash baa ku socota, security baa ku socota, kiraa ku socota. mashiinku wuxuu isticmaalaa marka tokenadaas ayuu xisaabsadaa oo qiimahoodu badanaa u badan yahay 0.2 pence u badan yahay, ayuu isticmaalaa inuu u xisaabsado inta qarash ku baxaysa. maanta oo kale 79 token marka qarash ahaan la isku daro ayaa shilinka soo sameysa. tokenadaada markay kuu bataan markaad u qaybiso 79 haddii aad maanta aad soo geshid baan ka hadlaya, 79 kaas hadii loo qaybiyo waxa kuu soo baxaya inta digital money adiga aad helayso ayaa kuu soo baxaya. afartaa kor haddaad si fiican u fiirisaan ma aha life changing amount, waa lacag haddaad ku darsato companyga lacagtaadana laguu soo sameeyo aad wax weyn ka faa'iidi karaysid weeye, oo mataqaanaa xoogaa lacag fiican oo kuuso aad ka helaysid. laakiin lacagta haddaad doonaysid noloshaada inaad wax ka bedeshid oo aad ganacsi ku samaysid waxay ka bilaabataa 5,000 iyo 500. mathalan 5,000 iyo 500 hadhowtan waa noo soo socota. iyo kaa greenka haddaad isku darsato 3 double bay leeyihiin. greenku 1 buu lahaa, kan 5,500 2 buu lahaa. 3 double markay kuu dhamaato asad waxaad haysataa gaaraysa waa midiiba 2 bilood buu dhacaa baan niri, waa 6 bilood. markaas waxaad haysataa asad gaaraya 47,000 48,000 oo euro ayaad haysataa. laakiin waa 7 euro iyo 85 marka lagu dhufto waa qiimaha maantay uu maraya lacagteenu weeye. haddii laakiin 25 euro si la rajeynaya markuu public tago 2018 uu gaaro lacag dhowr boqol oo kun oo dollar ayay noqonaysaa. sababtaas loo yiri kuwa kalena waaba kasii badan yihiinba.
waana sababta loo yiri afarta hoose waa life changing amount, waa lacag wax kaa bedelaysa markuu kamerigu marketka tago insha Allah haddii la idmo. kuwa kore laakiin waa 20,000 30,000 40,000 oo dollar meelahaas ilaa 80,000 oo dollar buu 3,000 ku siin doontaa hadduu market tago haddii la idmo. laakiin qofkii raba wax culus waa inuu kuwa hoose qaataa. bitcoin sidana loo soo sameyn jiray, waa inaad computer wax ka taqaanaa, waa inaad xisaabta wax ka taqaanaa. OneCoin laakiin waa virtual mataqaanaa mining waxa la dhaho leeyahay, ayagaa shaqada kuu qabanaya. tokenada marka kuu dhamaaday dhabalkaaga ayaa samid leedahay, ka bacdina halkaas aad u diraysaa. mashiinadaas waaweyn ee buluuga ah waa waxaan ka sheekeynay teknolojiyadii blockchain-ka ee loo isticmaalo mataqaanaa data haya lacagta ay waxaad isticmaashay, hantidaadii, wax kasta ID-gaagii, magacaagii, adresskaagii meesha lagu hayo weeye. tusaale ahaan haddaynu usoo qaadano baakejyadii oo dhan waa kuwaan ayagoo meeshan ku wada safan. tusaale ahaan haddaan usoo qaadano oo aad kaa greenka iyo kaa yelowga isku dirsatid oo 550 ah, 5,000 oo token buu la yimaadaa. dhabalka waxaa leedahay 2 xabo, markii dhabaladaada kuu dhamaadaan waa 4 bilood qiyaastii 20,000 oo token baad haysataa. haddaad u qaybiso maalintaas inta sida maanta oo kale inta token shilinka soo samayso 79 ah, 253 coins ayaad ku imaanaya. haddaa ku dhufato marketka intay maanta ka joogaana lacag 2,000 oo euro ku dhow ayaad micnaha asad ahaan u haysataa. sidoo kale haddaad kaas greenka iyo kan kunka isku darsatid, 2 dhabal bay leeyihiin, 40,000 oo token bay ku noqonaysaa processka markuu dhamaado. haddaa u qaybiso inta token shilinka soo sameynaysa maanta intaasaa samaysa, laakiin muddo ka bacdi waa ka badnaan doontaa kulley. haddaa u qaybiso 506 coin wey, haddaa ku dhufato qiimaha uu markaa shilinku marayana waa lacag 4,000 oo euro ku dhow. sidoo kale 3,000 markuu processka u dhamaado waa 11,000 wax ka badan. 5,000 iyo 5,000 markii processka u dhamaado 3 dhabal bay leedahay, marka 6,000 oo coins wax ku dhow baad helaysaa. lacagtaada asadkaaguna 47,000 bay noqonaysaa. sidoo kale packagekan waa packageka kamera ugu fiican, iyo package kaloo hadda meeshan ka maqano 7,500 oo u dhexeeya 5,500 iyo 13 ayuu u dhexeeya. waa package waxay leeyihiin labadaas wax la dhaho automatic mining, inaad sugtid banaanka sugtid inta waxaa ku dhamaanayaan dhabaladaadu maaha. mar allaale markaa gadato, tusaale ahaan markaad 13,000 aa gadato 150,000 token oo marka ugu horeysaba standardka la yimaado waxaa markiiba loo dirayaa meesha lacagta lagu sameeyo. muddo 5 beri ilaa 7 beri ka bacdina lacagtaadii qaybtii ugu horeysay ayaa ku imaanaysa. waxaa rabta aad ku sameyn kartid markaas. haddii aad dukaamada la furay oo hadda February la daari doono aad wax u gadanaysid, iyo haddaa iska haysanaysid ilaa marketka laga tegayo markaas lacag fiican aad ka qaansaday ku taala. laakiin markuu process ku dhamaado haddaad qiimaha maanta aad ku dhufato oo 7.85 waa 240,000 wax ka badan. sidoo kale midkan 720 waxaa la yiraahdaa waa automatic auto, waxaa la yiraahdaa millionaire kaas dadka gato lacag isbeer haysto awoodi kara. waa lacag hadduu 25 euro gaaro, lacagtan qiimo aad u fara badan ku gaaraysa. laakiin hadda haddii process ku dhamaado 60,000 oo coins ka badan ayay ku siisaa. haddaa ku dhufato qiimaha marketka maanta la joogana lacag $500,000 ku dhow ayay ku siisaa asad ahaan. micnaha halkan ku jira wuxuu yahay lacagahan ma gadi kartaa markii 6 bilood ka bacdi, 7 bilood ka bacdi, 8 bilood ka bacdi ku timaado maya. waxaad sugaysaa waxa weeye marketka intuu ka imaanayo. 2 option baad haysataa. mid waxa weeye dukaama la furi doonaa 10,000 gaaraya oo lacagtan aqbalaya haddii la haydmo. inaad uga gadato limit ma jiro, inaad waxay hayaan markaa uga gadatid, ama inaad marketka sugtay 2018 April ama May mid ay noqotaba markuu tago maalintaas ayaad waxaaga haysato dhanna gadi kartaa. qiimaha markaa jooga ayaad ku gadaysaa. inta ka horeysa waa inaad fishinkaagu dheer yahay, waa inaad ku xisaabtamaysaa inay waxaanay noqonayaan wax majuura inay noqdaan oo la rajeynayo inay si step ah kamariguna marketka u tago. laakiin haddaa is leedahay sidana lagu yaqaan 2 bilood 3 bilood ka bacdi baa lacag rujisanaysaa, kamarigan get rich quick ma aha. wax walba process bay leeyihiin, wax kastoo fiicanna inay wax noqdaan waqti bay u baahan yihiin inay mataqaanaa ku gaaraan meeshaas. laakiin haddaadan sugi karin marketka, dukaamadaas waxay gagadahayaan uga gado, markaasna hadhowna waa ka shalaayi doontaa kulley markii marketka la tago shilinku ama 30 ama 40 euro gaaro. lacagtii faraha badneed aad heli lahayd iyadoo raqiis ayaad waxyaabo yar ku gadatay. taa ogow. sidoo kale tani waa scenario haddii marketka la tago packageyadan aad qaadatay waaweyn maxaa rajeynaysaa. haddaad kaa greenka 7,500 oo auto mining lahayd aad isku darsato waxay 81,000 oo token bay la timaadaa. waa processka 3 xabo dhabal markay kugu dhamaato waa 65,000 wax ka badan.
mataqaana oo tokens ayay kusiisaa haddaa u qaybiso inta tokenada inta lacagta maanta token ay soo samaysa waa 79 waxaad helaysaa 8,000 wax ka badan oo coins haddii marketka lacala la tago haddii ilaahay idmo guarantee ma jiro cid guarantee meeshaan bixinaysaan ma jirto aniguna waxba idima guarantee garayn karo waa un just mataqaana tusaale weeye waxaan tusaalahaas u fahma haddii lagu dhufto marketka hadduu tago ilaahay idmo 25 euro wuxuu noqonayaa lacag ka badan 207,000 sidoo kale kan 13,000 hadduu marketka tago oo lagu dhufto 25 euro waa lacag ku dhow mataqaana 800,000 dollar ku dhow kan 27,000 hadduu marketka tago sidoo kaleeto koonankiisu 60,000 coin ka badan buu ku siiyaa 25 haddaa ku dhufato waa million and a half ayuu ku dhowdaa waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso isleeda waxaan wax dhici kara maahan waa iska ruwaayad iyo waa iska hawo laakiin oga wax dhacay weeye wax reality waa waxaan ka wada hadlaynaa bitcoin dib u fiiri kii kan ka horreeyey 10 pence ayaa lagu gatay lacagtiisa 3 sano ka bacdina haddaad $1 gashatay waxaad qaadan lahayd lacag ka badan mataqaana dhowr iyo 10 milyan ayaad qaadan lahayd waana dhacdo waa la qaato raggaan hadaayada tusayay baa qaatay marka waxaan wax ku dhisan waxa weeye fahan iyo inaad waxaan fahmi kartid ribana ma lahan oo kamanigaana ribo iyo waxaasi midna ma galo cid kalena lacag kuma darsado asagu package-daas ka faa'iida adiguna maxaa ka faa'iidaysaa adigu waxaad ka faa'iidaysaa dhabaladaana markay ku dhamaadaan oo aad tokenada u dirsato meesha lacagta lagu sameynayo lacagtu waxay kugu imaanaysaa digital money wholesale price ayay kaa gadan tahay discounted price ayay kaa gadan tahay wax ka yar 70 pence 60 pence ayay shilinka kugu fadhiyaa haddii aad marketka ku dhufato 785 na lacag far badan ayaa kugu jirta waa sababtaas way adigu faa'iidada halkaas ay ka imaanaysaa kamariguna wuxuu ka faa'iidaa package-dan dhowr kumanaanka kun ee qof maalin kasta gadanayaan maxaa ku samayn kartaa lacagtii markay ku timaado oo processka ku dhamaado waxaa samayn kartaa dealshaker.com baa tegi kartaa waa business platform waa Amazon iyo eBay oo kaleeto anagu aan leenahay hadda mataqaana 16 January ayaa la launch gareeyay mataqaana 7 beri ka bacdi hadda businessyada iska register gareeyay waa ujeedaan halkaas waa 2,800 waxaa laga yaabaa 3 bilood ka bacdi inay kor u dhaafaan 20,000 oo businesses oo lacagtan aqbalaya inay yihiin ayaa la rajeynayaa ama ka badan marketka 2018 marka la tagayana waxaa la rajeynayaa 1 million dukaamo ah inay noqdaan dukaamadaasi meesha hadda 2,800 ka yihiin xasuusnaada week kaliya ayaa mataqaana website-kan la daaray 7 beri gudahooda ayaa waxaa iska register gareeyay 2,800 oo businessku inuu meeshaan iska register gareeyana shuruudda ku xiran waxay tahay 50% inuu aqbalo digital money-ga naga in wax looga gato hadduuna taa fulinaynin looma ogola inuu iska register gareeyo website-ka iyaga halka haddaad korka fiirsan 38,000 waa dadkii markaas ku jiro live-ka ah ee online-ka ah wey labadiiba waa ku tusaya marka waxyaabo fara badan oo aad iyo aad u qurux badan ayaa ka soo socda laakiin waxaa ka faa'iidi kara dadka fahma intaan waxaan oo dhan isku daba dhicinin oo aan sheerarkii la furinin oona publica tegin oo mataqaana dukaamadii 100,000 gaarin oo lacagtu cirka gelinin dadka ilaa hadda early dhaqsanta soo gala lacagtaan intay raqiiska tahay intay urursada meel dhigta dadka un baa ka faa'iidi doona dadna waxay ku mashquulsanaan doonaan ma legitimate ba ama mashquul ba ama scam ba ayay weligood ku mashquulsanaan doonaan scam ma aha company-gan scam waxa la yiraahdaa lacagta cusub in lagu bixiyo lacagtii ka horreysay company-ga laakiin products buu leeyahay educational packages buu leeyahay qofku markuu taa gato ayuu unbuu helayaa lacagtiisa maxaa kaloo samayn kartaa koonankaagu marka ku yimaado waxaa kaloo samayn kartaa waxaa la furi doonaa dhowaan sheerarkii company-ga maadaama uu suuqii public u socdo public ayuu tegayaa dadka banaanka jooga lacagtiisa looma ogola dadka shilimaadkiisa haysta ayay u furantaa sheerarkan inay gataan kaliya raqiis ayaana lagu gadi doonaa marka aad iyo aad ugu diyaar garoobo marka la furo waxaan idinku baraarujin lahaa inaad lacagta haystaan oo digitalka inaad mudaan half inaad sheerarka ku gadataan sababtoo kambaniyada caalamka ugu weyn in noqdaan la rajeynaya oo sheerarku waa ka qaalisanaan doonaan lacagtu haddii xataa 100 hadduu gaaro shilinkaani sheerarka ayaa ka fiicnaan doona in the end anigu saan qabo waa opinionkayga guarantee idama siin karo laakiin waa tip aan idin siiyey haddaad fahmi karaysaan waxaan ka wado maxaa kaloo maxay fishinka company-gu wuxuu yahay intaan marketka la tegin 2018 10 milyan oo qof in la helo 1 milyan oo dukaama inay noqdaan on board ayaa la rajeynaya haddii ilaahay idmo sidoo kale wuxuu public tagayaa 2018 ayuu tagayaa haddii ilaahay idmo maxaad samayn kartaa markii lacagtaada sidoo kale kuu timaado waxaad samayn kartaa xcoinx.com baa tegi kartaa limit baa lagu ogolyahay inaad gado perfect maahno demand ma jiro marar badan ma gadmaan laakiin waa kuu furata inaad lacagtaada markii process kuu dhamaado inaad hadba inta lagu ogolyahay aad geyso marketkaas ka gadid ama iska hayso lacagtaada
inta ay mataqaanaa suuqa publica imaanaya aad ka hodmaysid. intaas hadda idiin soo sheegay waxaa weeye waa qaybtii companiga inaad vision inaad leedahay oo aad mataqaanaa waxyaabo ma ku xisaabtamaysid long termka companiga inaad ku xisaabtamaysid. haddaan dulmar sameeyo baakeejyaa gadanaysaa, waxbarashadii ayay kuu furayaan, waxbaad baranaysaa, waxay la yimaadaan tookana ayay la yimaadaan. tookanadu waa waxa ku siinaya lacagta digital maniga ah. lacagta digital marka lagu sameeyo tookanada waxaan leeyahay raalli ahaade waxaad u dirsanaysaa meesha lacagta lagu sameeyo markay dhabaladaada kuu dhammaadaan. waa marka lagu soo sameeyana waxaad samayn kartaa ama xcoin xkaa tegaysaa wixii lagu ogolyahay ayaa gadaysaa, ama waxaad sugaysaa marketka weyn inta laga tegayo, ama dukaamada ayaad wax u gadanaysaa, ama credit cardkan mastercardka hadda waa suspended, dad badan baa haysta oo lacagahooda hadda kula baxa, laakiin dhawaan in lasoo celiyaa la rajeynaya haddii la hedmo ayaad ku isticmaali doontaa haddii la hedmo. qaybtan companigu qaybtan kasoo sheekaya waa qaybta long termka ah. qayb labaad buu leeyahay companigan oo la yirahdo network marketing. qaybtan labaadeen qasabkuguma aha, autoship ma laha companigani, manaha kuwii tuugada ahay inaad qof keenta maahane aadan shilin dhadhaminaynin. adoon qof keenin baad haddana lacagtaada companigan ka hodmi kartaa. wixii aad gashto haddaad lacag fiican gashatid ama lacag yar gashatid aday kuu taala, haddana waxaaga waa kuu shaqeynaya, shilmadkaaga waa laguu soo sameynaya, dukaamada wax waa uga gadan kartaa, marketkana hadhowta waa ka faa'iidaysaa adoon weligaa laha cidna keenin. 2.8 milyanka memberada ah hadda dadka ka badan, haddii qofkiiba hal keeni lahaa caawa overnight wuxuu noqon lahaa memberadu 5.6 milyan ayay noqon lahaayeen. taas waxay ku tusinaysaa 95% dadka ku jira companiga cidna ma keena, cidna lama wadaagin. laakiin haddaad doonayso hantidaadii halkaan oo shilmaadkaaga lagu soo sameynhayo inaad lacag wiig ilaahay keeno monday kasta haddana lacag lagu beegarayo aad heshid, qaybtan ayaa sameyn kartaa. companiga lacagteenana waa wadan oo waxaan idhi lacagteenu dhimaan bay ku xiran tahay, dadku inay maantana soo galaan ayay ku xiran tahay, oo valuega waxa digital currency u sameeya waxaan idhi waa dhimaan iyo rabitaanka dadka. haddaan rabitaanka dadku jirinin qaybo ma yeelanayso. sidaa darteed waa in la helaa dad mataqaana dadka businesska la wadaaga oo u sharaxa, hadday ku qancaana waxbay gadanayaan markaas. waa sida Soomaaliya oo kale. Soomaaliya haddaa u fiirsataan waagu markuu baryo haddii lambarada la isku tutuurahay dadku mobilka diidaan oo dhaha lacag maaha, jawaanadii unbaa loo noqonaya bakaaraha la jiidi jiray. why? because dadkii dhimaankii iyo dadkii rabitaankooda dadkii aaminsanaabaa diiday. marka sidoo kale kana 10 milyan waxaa la rabaa dadkii keeni lahaa waa loo baahan yahay. marka waa inaad qayb ka qaadataa. hadduu qofkiiba laba keeno muddo yar baan ku gaaraynaa haddii la hedmo. dadka aadka u aaminsan network marketingka inuu yahay futureka businesskiisina Richard Branson baa kamid ah, waa ninka ugu taajirsan ee wadankan UK. waxaan filayaa raalli ahaada inaanan daari karin baan filayaa cajalada inaan daari karaan isku dayay, laakiin ima muuqanayso inaan daari karo. hal mar baan ku celinayaa laakiin ma u malaynaya inay ii daarmayso. waa ka gudbayaa. sidoo kaleeto haddaad tagtaan business for home waa company madax bannaan oo keliya wuxuu rajistarayaa network marketka adduunyada kambaniyada sameeya. wuxuu sameeyaa dadkooda lacagaha ugu qaadashada badan, ugu mataqaana hantida badan. haddaad fiirsan 1 2 6 8 10 ugu horeeya 6 qof waa mataqaana OneCoin bay ka socdaan. waana company 2 sano kale jira, sida Amway oo kale muddo company 50 sano ka badan jiray ah. Dexter dhowr iyo 30 sano ayuu number 1 ahaan jiray, laakiin companyga OneCoin oo hadda yimid oo 2 sano ka hor yimid ayaa positionka ka qaaday. ninka caalamka hadda ugu mataqaana hantida badan Joha Bariela la dhaha waa Finlandays, $4 milyan lacag ka badan ayuu bil kasta qaataa. companyga marka waxyaabaha uu sameeyaa normal maaha. lacagta oo lagu bixiyaa qaybta network marketing ay ku bixiyaana lacag caadi maaha. 125 milyan horeyda kugu soo sheegay mataqaana lacag half ku dhow waxay ku bixiyaan dhismaha companygan, laakiin mushaar maahana waa inaad baxdaa dadkii waxaysiin u sameysaa companyga dadkii la wadaagtaa. markay wax gataan oo akoonka ka furtaan ayaad wax helaysaa. 3 qaybood ayuu companygan sameeyaa oo mataqaana bonus ah, lacag ayuu bixiyaa dadka la wadaaga siiya week ilaahay keeno Monday kasta. qaybta ugu horeysa waxa la yiraahdaa direct sale. macnaheedu wuxuu yahay inaad adigu qof kastoo businesskan la wadaagto oo businesska soo gala oo akoon u furto, wax kasta u gashto, waxaad ku leedahay 10%. tusaale ahaan haddaad adiga waa kaas haddaa 2 qof keentid oo 5,500 euro gashtaan, companygu wuxuu ku siinayaa Mondayda soo socota 550 ayuu ku siinayaa. intaa kuma eka 30 beri kugu horeysa haddii adiga iyo tiimkaaga dadkan ka hooseeya laftigaaga iyo raadkaaga ay keenaan lacag
gaaraysa 5,500 waxaad qualify u noqonaysaa 10% extra in lagu siiyo week kasta inta 30 beri ka dhamaanayso oo 550 dheeraada ayaad helaysaa halka 1,100 euro ayaad heshay. qaybta labaad waxaa la yiraahdaa waa network marketing, waxaa la yiraahdaa andhehe network bonus ayaa la yiraahdaa. Akoonkaaga waxaad ku dhex leedahay midig iyo bidix ayaad ku dhex leedahay. waa laba organization ayaa dhisan kartaa, laba urur ayaa dhisi kartaa akoonkaaga. waa wax ku samaysan systemka mataqaana akoonkaaga ku samaysan weeye. Let's say dadkii midigtaada joogay organizationka jooga weegan waxay gadeen oo package ah oo markay business dadka u sharaxeen ay gateen 20,000 marka la isku daro qiimo ahaan package gaaraya. Laankaaga bidixda kuwa joogana waxay gateen 30,000 qiimo gaaraya ayay gateen. Systemku wuxuu sameeynayaa markaas labada gacmood kii yar ayuu 10% ka siinayaa 2,000 euro way halkaas because 20,000 waa lagu beegaray zero noqonaysaa. week marka waxa la sameeynayaa 20,000 waxa laga jarayaa 30,000 ee bidixdaada qaybtaada xoog leh ayaa laga jaray 10,000 ayaa ku soo haraysa. 10,000 meesha ku oolaysa ilaa hadana another volume kale ka soo samaysanayso. So qaybtii koowaad waxaan waa direct sale waa 10%, qaybtana waxaan waa 10% oo dhinaca week side ka ah. qaybta saddexaadna waxa la yiraahdaa waa matching bonus, waa qaybta ugu muhiimsan. waxa la yiraahdaa waa passive income ayaa la yiraahdaa. dadkii aad keentay adigu company-gan keentay wixii ay shaqaystaan oo system ayaguna organization ay dhistaan waxa ay helaan ayaad wax ka sii helaysaa. shaqadii adoon qabanin ayaad adigu waxa iyagu heleen wax ka sii helaysaa. labada qof ee ugu horeeya bidixaada iyo midigtaada jooga waa ugu horeysa 10% ayaa ku leedahay waxay helaan. Matalan hadday 5 qof keeneen oo qofkiiba 100 euro gatay waa 500 euro, 10% ayaa leedahay qofkaasi wuxuu wiiga helay. adigu waxaad helaysaa 50% asaguna 500 ayuu helay. kan ku xiga qofka labaad ee bidixaada iyo midigtaada yaallay qofka koobaad uu keenay waxaad ku leedahay 10% wuxuu asaguna helo. haddii qofkiiba 5 ayagana keenay waa 25 qof. haddii 25 koodii qof min 100 macnaha dadkaas gataan waa 2,500. 2,500 oo qofkaas asagu helay waxaad ku leedahay adiguna 10% waa 250 euro ayaad ku leedahay. sidoo kale qofkaaga saddexaad ee midigtaada xigay bidixaada jooga oo qofka labaad keenay waxaad ku leedahay hadduu helay weegan Mondaydan 12,500 bonuses hadduu helay adigu 10% oo kaas leedahay 2,500 ayaad ku leedahay. qofka afraadna waa midka ugu hantida badan. qofka afraad ee bidixaada ama midigtaada jooga hadduu shaqaysto wax helo hadduu 62,500 asaguna helo waxaad adigu weegaas helaysaa 10%. 25 aan dhehe percent ayaad helaysaa. weega 15,600 ayaad helaysaa lacag ka badan. sidoo kale package-da aad qaadanaysaa ayaa ku xiran tahay faa'iidada aad ka helaysaa company-gan. haddaad package-da magacyadoodan trader iyo pro trader executive iyo taakunka midigta yaala haddaad fiirisaan trader qaybta koobaad kaliya kuu furayaa. package kastana waxay ku xiran tahay waxaad adigu package-kuna wuxuu ku xiran yahay midkii aad dooratid adigu aad awoodi karaysid. mid walbana mataqaanaa match bonuska qaybo ayuu kuu furayaa. aan ku celiya traderka wuxuu kuu furaa oo wax ka heli kartaa waa qaybta ugu horeysa kaliya. labada qof ee ugu horeysa 10% baad ku leedahay. pro traderka labada qof ee midig iyo bidix jooga ayuu kuu furaa. executive-ku ilaa 3 qof oo midig iyo bidix ayuu kuu furaa. iyo match bonus kaasina ayaa waxa iyagu heleen waxaad ku sii leedahay 20%. taakunku waxoo dhan buu kuu furaa. 4 qof ee midigtaada iyo bidixaada jooga ayuu kuu furaa. wixii kasii dambeeya match bonus kuma lihid hadday 100 xataa gaaraan. wax shaqo ah runtii aad ku leedahayna ma jirto. laakiin 25% ayaad ku leedahay qofka afraad wixii markaa asaga uu helo. tusaale ahaan hadduu 62,500 oo bonus helay adigu 25% baa ku leedahay waa 15,000. maxaa ku samayn kartaa lacagtaas 60% cash ayaa company-gu ku siinaya akoonkaaga lagu dhigayaa. 40% waxaa ku gadanaysaa digital company-ga lacagtiisa ayaad ku gadanaysaa oo company-ga ayaa circulation loogu sameeyaa lacagtiisa. sidoo kale waxaan leeyahay company-gan leeyahay wax la yiraahdo ranks waa appreciation in macnaha lagaaga mahadceliyo hawsha badan aad qabanayso. sababtoo ah waxaa la yiri qiimo ma laha company-gu qiimo ma laha digital currency qiimo ma laha. waxa qiimaha u yeela waa dadka, waa lacagtii dadka. ayaga uma aamino inay wax tahay, ayaga wax ka dhiga, ayagana wax la-aan ka dhigi karaya. marka qaybta ugu horeysa waa sapphire ayaa la yiraahdaa. qaybta ugu horeysa sapphire ayaa la yiraahdaa waa 7,000 oo volume ah inaad keentaan adiga dadkaaga. qaybta ku xigta waxaa la yiraahdaa ruby waxaa weeye waxaad helaysaa iPhone 6 40,000
iyo 10,000 waa inaad keentaa bil gudaheed. qaybta saddexaad waa qaybta anigu hadda aan ahay oo emerald baan ahay oo waxaan sameeyaa network marketing. waana qaybta hadda kugu talagalay anigu inaad isugu keen sharaxo markaan cajalada bilaabay. haddaa xasuustaan magacayga midna idima sheegin, cajalada ayaan idin bilaabay. qof walba cajalad kastoo ay bilaabaan magacooda ku bilaabaan iyo waxay yihiin. anigu laakiin halkaan ka doortay maadaama darajada kambaniga iyo halkaan ku qorantay, halkaan ka doortay inaan anigu wax yar mataqaana magacayga waxaan ahay kugu sheego. aniga magacayga waxaa la yihahdaa maxamed jaamac xaashina waan ku magac dheeraya. kambanigan waxaan ku jiraa muddo hadda sanad ku dhow oo wax yar dhiman. dadkii ugu horreeyay Soomaalida ahaa ee businesskan Soomaalida u keenay baan ku jiray, soo helay. dad fara badan runtii waa ka hodmeen, dad fara badan baana lacaga fara badan ka helay, dad fara badan baa shaqooyinkoodii ka tegay maadaama ay heli karaan shaqo ay hanti ka helayaan week kasta, ayaga oo mataqaana familkooda la jooga, ayagoo waxay doonaan qabsanaya, ayagoo holiday rabaan aadahaya, ayay micnaha horumarkaas gaarsiiyey kambanigani. dad fara badan buuna gaarsiiyey. waa ninkii arkay 10,000 oo qof ayaa micnaha lacag week walba markay network marketing qaybtiisa siiyaan ayay kasoo gashaa. waxaana rajaynayaa markuu publica noqdo uu lacagteeda ma gadgado, dukaamadan hadda la furi doonana xabad uga gadan maayo, sababtoo lacagteeda ma doonay inaan raqiis ku bixiyo. sheerarka markaan la furo bilahan soo socda, yes half lacagtaan hayso digital markaan sheerar baan ku gadanaya, because I believe sheerarku inay kambanigan kambani weyn buu noqonaya, inay sheerarkiisuna noqon doonaan dahab noqon doonaan. sidoo kaleetana waxaan sugayaa on public exchange markuu tago haddii ilaahay idmo. hanti fiicanna runtii waa gashtay. waxaanan ku jiraa dadka wadankan UK kambanigan ku jira markuu public noqdo lacagaha aadka ugu fara badan ugu badan heli doona ayaan rajaynayaa inaan noqdo haddii ilaahay idmo. waxaa kusii xiga marka qaybta diamondka kusii xigta. diamondka marka waxaan filayaa 3 week baa iga xiga insha Allah. waxaan rajaynayaa inaan halkaa gaari doono ama bil ama 2 bilood, hadba waxay ku xuntaa volumeka xaggiisa. waa inaad bisha gudaheeda adiga tiimkaaga waa inaad keentaan volume gaaraya business marka la isku daro 200,000 oo midigtaada ah iyo 80,000 oo bidixdaada, ama midigtaada 80 ah iyo bidixdaada 200,000 ah. labada dhinac waa isku mid. sababtu waxay tahay micnaha volumekan wuxuu yahay micnihiisu wuxuu yahay bil ka bacdi haddii aad gaari weydo oo 20,000 kaa dhimaneed intaas, bisha kale hadday dhalato haddana zero laga soo bilaabaya volumeka. marka waa arrin aad u culus gaarideeda weeye. blue diamond baa ku xiga, waxaa kusii xiga black diamond, waxaa kusii xiga crown diamond ayaa kusii xiga. sidoo kaleeto maxay tahay inaad soo gashid iyo inaad hadhow soo gashaa, maxay ku kala duwan yihiin kambanigan? waxay ku kala duwan yihiin hadda soo gashay inaad hadhow soo gasho. labadan qof midna January buu soo galay, midna wuxuu soo galay 2017 same package 5,500. ninka odaga ah laba double buu lahaa ugu horeeyay 2015 240,000 token buu helay. afariya halkaas 4 token kaliya ayaa sameyn jirtay shilinka soo sameyn jirtay waagaas. why? because dadkuna waa yaraayeen, qarash ku baxaya kambanigan waa yaraayeen. 60,000 oo coin buu helay. haddii lagu dhufto qiimaha maanta waa lacag ka badan 470,000 euro. ninka odaga same package 5,500 buu gatay. laba double buu lahaa. bal fiiriya laakiin difficulty-ga inta lacagta soo sameysa maanta 79 token ayaa maanta shilinka soo sameysa. 3,000 kaliya hel meesha ninkaas 60,000 ka haysto. lacagtiisa marka qiimaha lagu dhufto 23,000. wax weyn baa u dhaxay ninka kore iyo ninkan hoose. sidoo kale qofkii 6 bilood hadda kadib yimaada iyo qofka maanta jooga 23,000 wax u dhaxtaa ma helaysa, halfkeed xataa ma helaysa markaas. marka qofba inuu markuu yimaado unbuu kulli ku xiran yahay inuu qofku markiiba fahmo intaan kambanigan istaagin oo hadda la xirin. baakeejadan waxay ku ogyihiin April 2018 iyo network marketing iyo wax oo dhan waa xirmayaan. marka intaan waxaan la xirin dadku ka faa'iideystaan oo ay waxun gashtaan si ay hadhowto wax uga faa'iidaan aad bay u muhiim u tahay. sidoo maxaa sameyn kartaa? waxaad sameyn kartaa team building. qasab kuguma aha kambanigan, oo haddaa aragtaan 2.8 million kaas qof haddii hal qof keeni lahaayeen overnight 5.6 million bay dadku noqon lahaayeen. waxay ku tusinaysaa 90% dadka ku jira kambanigan weliba qof ma keenin. sidoo kale qasab kuguma aha inaad dad keentid oo sidaa lacag u heshid, oo adoon qofna keenin baa hantidaa gashatay shilimaadkaagana ku imaanayaan, hadhowtana ka faa'iideysaa. bonus kastana waxaa la isa siiyaa, monday kasta ayaa la isa siiyaa. waana coinka ayayna value-ga u kordhinaysaa. haddaa network marketing sameyso qofkiiba 2 qof keeno, annagana marketka waa noo soo dedejinaysaa 10 milyan waa la gaaraya taarget ku ahaa. marka u noqo qofkii businesska kugu sharaxay, weydii inuu mataqaana kuu furo account free inuu kuu furo. marka kadibna awood baad u yeelanaysaa macluumaadka kambaniga iyo waxaasoo dhan inaad akhrisid. aad baan idiin salaamahayaa. markastana lahaada qof idinka koreeya upline la dhaho oo businesska idiin sharaxa. haddii kale waxa weeye waxaad ku noqonaysaa difficulty wixii aad ku adkaanaya inaad fahantiin.
aad baan idin salaamay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.